بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصحاب السودة وهذا وأنا هو جدي سوريستي channelka جدي official waxaan rabaa haddii ilaahay yiraahdo inaan ardayda la wadaago buugga wasaaradda waxbarashada ee maadada afka Soomaaliga form 4ka ah layliyadiisa in aan ardaydu meel kastoo ay joogtaan ay channelka ka faa'iideystaan oo aan jawaabaha si fudud markaa aan ugu soo gudbiyo si arday iyo macallimo markaas ay halkaas uga faa'iidaan marka ardayga layliga buuggu maadaama uu aad u fara badan yahay in layliga la qoro ardayga way ku adkaanaysaa oo gacanta uu ku wareejiyo laakiin waxaa uga fiican buuggiisa caadiga isagoo haysta inuu markaa bogga tago sida halkan ka muuqato cutubka koowaad afka iyo qoraalka bogga waxqabadka uu ka bilaabmaya waa waxqabadka toddobaad bogga tobnaad baa tegaysaa waxqabadkiisa toddobaad waa buugga fasalka 12aad form 4ka marka jawaabihii baa waxaa la rabaa marka halkaa inaan markaa kusoo gudbino si ilaahay yiraahdo ardayguna markaa halkaas ka dheehdo si fudud markaas uu ugu qorto buuggiisa caadiga buu la soo kala baxaya boggu tegaya qalin buu qaadanaya lambarka iyo jawaabtu isku aadsanaya hadhow markuu akhrisanayana markaas waa u fududaanaysaa intii uu layliga guurin lahaa qaab noocaas oo kale taaba uga fudud layliyada buugguna markaa aad bay u fara badan yihiin waxaan u doorbiday arrinkan waxa weeye asxaabay maadaama dee ardaydu tuulooyin qaar joogaan oo magaalooyin joogaan gobollada waxa weeye ay ku kala firaqsan yihiin oo qaybaba meel ay joogto uma saabaxayso arday walba inuu markaa magaalo joogo ama waxa weeye cid ka caawiso markaa uu helo saa darteed channelka meel kasta aad joogo waad ku xirnaan kartaa wixii markaas lagu soo dhigana waad ka faa'iidi kartaa wixii aad garan weydidna markaas waa kusoo gudbin kartaa si markaas ra'yiga ugu wanaagsan markaa lagula wadaago waaye soo dhawaada ardayda marka waxaynu samaynaynaa halkan markaad joogtid halkan waxaa kuu qoran erayadii baa halkan taxan dhinacaana waxa yaalla weerihi tusaale ahaan halkaasoo kale markaad joogto aad halkaa lambarka aad tagto koowaad oo kale waxaa la rabaa markaad jawaabtii inaad markaa qalinkaaga ka qaadato markaas aad si fudud markaa ugu qorato lambarka koowaad oo kale waxaa ku qoran qadow waxaa dhigaysaa lambar 10 oo kale 10 hoos markaa u degtid maxaa kugu jira 7 godkan kale waxaa dhigaysaa 2 godka ku sii xiga waxaa dhigaysaa 8 godka ku sii xiga waxaa dhigaysaa 6 godka ku sii xiga waxaa dhigaysaa 4 godka ku sii xiga waxaa dhigaysaa 9 godka ku sii xigana waxaa dhigaysaa 3 markaad joogtid lambarka godka u dambeeya aad dhigaysaa waxaa ku qoraysaa lambar 1 arday halkaa marka waxaa ka muuqda haddii aad u sii fiirsato waxaa ka muuqda inay markaas waxa weeye haddii ilaahay kuu ron yahay godadka lambarada ay ka maqan yihiin lambarka godkan uu bannaan yahay godkan marka waxaa ku qoran lambarka meesha ka maqan macnaheedu waxa weeye macnaha ereyga ku qoran waa lambar 5 lambarka ina ka maqan sooma lambarka 5aad oo kale ina ka maqan lambarka 5aad waxaa ku qoran ardayga heensaha baa ku qoran heensuhu marka muxuu yahay waa qalabka loo adeegsado fardaha qoorihiisa oo dhan markuu qalabkiisu isku dhammaystiran yahay halkana waxaa ku qoran kuwa ya aragnimo qaadasho ama ku cibro qaadasho waa buugga ku qoran marka hadhow in dib loo saxo bay noqonaysaa oo de marka qoraal badan la samaynayo qasab waxbaa khaldamaya marka godkaas iyo ereyga ka maqani markaas macnaha isma keenaya saa darteed qaabkaas baa kaa uga gudbaysaa hoos markaa usii socotid waxaa kugu qoran waxqabadka 8aad isla bogga 11aad waxaa la yidhi su-aal dheer baa meesha ku qoran oo ah askar tiro badan in meesha lasoo qoray oo su-aal hal xiraala ay tahay su-aashaas marka aniga ra'yi ahaan waxay iila muuqataa maadaama jawaabta ay bixiyeen askartu ay tahay 120 askari waxay noqonaysaa 12 saf oo midkiiba uu yahay 10 marka 12 marka 10 lagu dhufto 120 askari bay noqonaysaa ciddii markaas jawaabta jawaab ka duwan markaa haysana iyaduna way soo gudbin kartaa haddii ilaahay yiraahdo waxqabadka 9aad koox koox baa la rabaa inay ardaydu uga jawaabaan waa waxqabadka 9aad waxaa la yidhi 3 waa kaabe badbaado orod aqoon iyo dabaal aqoon iyo gabasho aqoon kaabe badbaado marka la leeyahay macnaheedu haddii dee dhibaato ay kusoo wajahdo oo qof cagaha waxa weeye dila kuu ron yahay kaga baxsan kara aad tahay waa kaabe macnihii cagahaas orodkaas baa laga yaabaa inaad ku baxsato haddii badweyn aad ku dhacdo ama aad ceel waxa weeye qusurah oo kaleeto aad ku dhacdo barkad ku dhacdo dabaal aad taqaanid ama ay biyo tog maraya kula tagaan iyada laftigeedu waa kaabe markaas badbaado oo dabaashu qofka waxa weeye wuu ku badbaadi karaa qofkii ilaahay bixinaya laakiin baa baxsoonaanaya badbaadaya
gabasho haddii dee colku raadinayo oo kaleeto ama lagula diriro dhagax lagu soo tuuro aad markaa xeesha gabashada taqaan intaad ka soo taagnaato waa lagu dilaya gabashada laftigeedu maxay tahay waa kaabe laakiin dee waxaa la rabaa ardaygu inay iyagu ka doodaan hadda fikirkooda markaas ay kusoo gudbiyaan waayahay arday dhammaantiin jannadka ku xiraada su'aalaha ka faa'iidaysta cutubka qaybihiisa kale waa soo gudbinaya buugga dhammaantiis waa idinku soo gudbinaya insha allah haddii qaabkan uu idin anfacay waxa weeye haddii ilaahay kuu ron yahay waa ila soo wadaagi kartaan aad ayaad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu